sawirkan aad u jeedaan waa gabar walaasheen ah Coco ayaa lagu magacaabaa waa YouTuber baraha bulshada ay haysata sawirkeedii muuqaaladeeda iyadoo ooyeysa gabadhan walaasheen ah waxa ay ka cabanaysaa waxay leedahay anagoo jidka marayna ayaa waxa oo airport-ka u socona ayaa waxa naga hor yimid askartaas waxa ay sheegtay inay wadeen dad ay ku sheegtay ajaanib kulli dabcan wafdi baawur iyo kolonyo isla socda marka waxay dhaheen tir gadaal u laabta aan gudubno ka bacdi idinkuna gudba marka gabadhan walaasheen ah waxay ka ooysay arinta iyada waxay tiri sidee nin qof ajnabi iyadoo la wado anigoo muwaadin Soomaaliyeed la itaaji kara anyways sorry ano wadankayga joogo Soomaali in alido nin ajnabi ah ka qiimo badan ay adiga gadaal u laabo midkaasa ka xanaaq oo ii qabtay oo ila hadan unta ee u buuxdaa I'm sorry baydi adoo faraxsanaa raba inaad diyaaradaas kurto adoo faraxsan oo qosla inaad diyaaradaas raacidaa horta ani dadkay u laabanaya mac salaama marka dadka muuqaalkan daawanaya muqdishada yaqaanay waxay soo martay iyo hadda xaaladeeda macnayaal kala duwan oo muujinaysa anaga macna ka duwan oo muujinaysa arintay gabadha walaashana ka hadash awalan horta hadii la caayida kuma taageerino askartu inay wax caayeen kale cadayna hadda ma hayno laakiin in la taajiyay waa ay qirata gabadhu oo kaliya ay dhibsatay sidee qof ajnabi ah loo gudbinayaa adigu joog la idhihi kara intaas walaashan sheeg intaas markaan u fiirino wixii la soo maray gabdhihii baabuurta la darsii jiray askartii jidka madaafiicda ku fura jirtay amisoomtii bajaajta iyo waxa la wixii saaran dul mari jirtay iyo markaan fiirino iyo jidadkii iska xirxirnaa oo muwaadin xuquuq la iska dhaafe muwaadin naftiisa la baxsanayo la badbaadayo uu yaraa iyo wixii muqdisho soo marta markii la fiiriyo anaga macna gooniyo noo muujinaysa askartii soo joogi jirtay magaalada muqdisho iyo askarta hadda cabashadeedu ku soo koobantay sidee ay ii taaji karaan ee dhihi karaan aan gudubno anaga aan ka hormarno anaga askartii wafdina waa wadnaa aan ka hormarno ee wax yarna suga sidoo loo dhigi karaa ama gadaal u yar laabta sidoo loo dhigi karaa hadii askar maanta lagu haysto ay jirto oo halkaas ay marayso anaga macna gooni noo muujinaysa dad kale waxa jira muqdisho ku sii noolaa hogaamiye kooxoodiyadii jidadka markay u kala xirnaayeen gabdhaha la xoogo dahabka laga furto waxa la soo maray dad la iska afduubto oo madax furasho lacag looga qaato inta meel isaga xirto gabar caan oo jid maraysa maalin kasta la arki lahaa malaayiin lagu raadsanaa inta meel isaga xirto waxa ay soo martay dadkii xiliyada hogaamiye kooxoodiyada kasii gudub xiliyadii kasii horeysay oo 91dii burburkii dalka dadkii soo maray iyagana waxay u muujinaysaa macna kasii weyn macnahan iyada ah dagaaladii afar biloodyada iyo wixii wadanka ka jiray magaalada muqdisho ka jiray macna gooni oo sii muujinaysa dabcan cidii kasii horeyso xilliga berisamaadka soo martana macna u muujinaysa oo ah in muqdisho xilliga berisamaadka ku soo laabatay oo macnaha la soo gaaray xilli qofka muwaadinka ah uu u doodi karo ana jidka ka xaq leh maraya dadka ajaanibta ah in xilli muwaadinka Soomaaliyeed ku doodi karo xilligaas in la gaaray macna noocaas u muujinaysa marka qoloba macna u muujinaysa hadaba adiga macna nooca ay ku muujinaysa sideed u aragtaa maanta in muqdisho cabashooyinka ugu weyn oo ka jirta ay noqotay jidka aan ka hormaro arintaas sidoo aragtaa inuu muhiim xaq oo sayfalada nuurab wassalaamu calaykum way aragu waa door niman dunida soo marin garaadkiisu waa duug dad waxaad ka maqashiyo daymada ishaaduna dar ilaahay kala wacan ha isku noqonin dooligii ku duqoobay haante kaalay dunida Soomeer oo dalxiis ku soo aad ajansiga la doortee dadweynuhu ka daba dhacay adeeg daacadeed iyo degdegsiimo lagu xulay abka World Travel Agency and Cargo xarunta Nairobi waxa ay ku taala xaafada Isli Maashka Fast Flow ama dabaqa koowaad F44 wixii intaas dheerna waxaad kala xiriiri kartaa lambarada shaashada kaga muuqda